madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamuud Islaam ayaa mas'uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada ka dhageystay waxyaabaha u qabsoomay iyo qorshaha sanadka 2020 iyadoo ay waxqabadka wasaaraddu soo bandhigtay ay ka mid yihiin mas'uuliyiinta wasaaradda ayaa Axmed Madoobe waxay u gudbiyeen qodobo la xiriiray waxyaabaha u qabsoomay iyo qorshaha ay wadaan oo la filayo inay wasaaraddu fuliso. Wasaaraddu waxay shaqo abuur samaysay dhalinyaro gaaraysa 3912 oo iskugu jira gabdho iyo wiilal 3000 oo kamid ah waxa la siiyay maalgelin 280 kamid ahna waxa la baray dhismaha guryaha iyo kombiyuutarada. dhanka kale qorshaha wasaaradda ee sanadka soo socda waxa kamid ah shaqo abuurka xirfadsiinta dhalinyarada ku aadan ka faa'iideysiga kheyraadka dalka, hirgelinta xarunta hal abuurka dhalinyarada, dayactirka lagu sameeyo garoonka kubadda cagta ee Waamo ee magaalada Kismaayo, hagaajinta iyo sameynta garoomo gooni ah gabdhaha iyo kubadda kolayga. Samatar Umar Ismaaciil, VOS, magaalada Hargeysa.